السلام عليكم كسر وهذا برنامج كتابسن حسبيغا محافظka ee kulmiye barnaamijkaasi waxaynu ku eegi doonaa maxaa uu qabsoomay xisbiga muxaafadka ee kulmiye oo lolihiisii wixii uu ballan qaaday ee uu ku qasbaday codkii ugu badnaa abid laga helo jamhuuriyadda Soomaaliland codkaasi oo ahaa boqolkiiba 47 oo ahayd boqolkiiba kala bar dadka codka dhiibtay oo wax yar la haddaba xisbiga muxaafadka ah ee kulmiye waxa uu ballan qaaday ay ugu badan yihiin oo ay ugu waaweynayeen inuu wadanka maamul wanaag u horseedi doono musuqmaasuqa inuu yareyn doono markaana inuu dhisi doono laamiyo iyo wadooyin dadku kaga raystaan haba ugu weynaado wadada halbowlaha isku xidha gobolka Togdheer iyo gobolka Sanaag haddaba xisbiga muxaafadka ee kulmiye maxaa uu qabsoomay intaas oo dhan barnaamijkan ayaa kaga boon doontaan iyo barnaamijyada dambe ee soo socda fadlan soo dhawaada xisbiga muxaafadka ah ee kulmiye waxa uu doorashada ku guuleystay 2016 Juun waqtigaasi oo uu ahaa mucaaradkii ugu weynaa ee ka soo horjeeday xisbigii udub ee wadanka ka talinayay xisbiga muxaafadka ah ee kulmiye waxa uu ballan qaaday inuu dhisi doono ciidan xoogan sidoo kale Axmed Maxamed Maxamuud Siinayo oo ah madaxweynaha iminka ballan qaadidiisii ugu weynaa waxa kamid ah inuu dhisi doono wadada u dhaxaysa gobolka Sanaag iyo gobolka Togdheer haddaba wadadaasi ma dhisantay mise ma dhismin shacabka ayaa ka jawaabi doona waxa kale oo madaxweynuhu ballan qaaday dhisida ciidan qaran oo xoog iyo tayo intaba leh haddaba taasina ma suurtooday waxa qiri doona ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland kaasi oo u qaybiyay darajooyin markii ugu horeysay intii la aasaasay ciidanku waxa uu ku qalabaysan yahay hubka zaanadihiisa kala duwan kuwoodii ugu dambeeyay inkastoo aanay gaarin sidii loo baahnaa xisbiga muxaafadka ah ee kulmiye waxa uu ballan qaaday sidoo kale in uu tayan doono waxbarashada oo ka dhigi doono bilaash taasina waxay ahayd waxyaabihii ugu badnaa ee uu ku helay codadkii ugu waaweynaa ee ugu faraha badnaa haddaba bal aynu dhageysano mid ka mid ah heesihii uu waqtigaasi ku soo baxay kulmiye oo ay u horeysay heestani iyo xilkii habkii dawladnimo idinka haye hilinka ka wadaada hawsha iyo xilkii habkii dawladnimo idinka haye hilinka ka wadaada dashuway haraato hormadu ma maqnee haddaba ma la soo karaa xisbiga kulmiye waa uu ku guuleystay ballanqaadyadii faraha badnaa ee waqtigaasi sameeyay oo ay ugu tun weyneyd wadada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag iyo gobolka Togdheer isku xidha ama aan idhaahdaba gobolka Sanaag iyo wadanka intiisa kale isku xidha sidoo kale ciidamada militariga halkoodii ma la gaarsiiyay balaynu yara daawana muuqaal yar oo ku saabsan wadada Ceerigaabo heesihii goobada ah ee loo qaaday waxaana kamid ah sidan
haddaba waddadaasi xaggee ku dambeysay see ma dhammaatay? xisbiga kulmiye sidoo kale wuxuu ballan qaaday inuu dhisi doono ciidan xooggan oo uu dalku iska yeesho, waxa uuna qalabeeyey ciidamada kala duwan ee uu waddanku leeyahay. sidoo kale waxa uu ballaariyey oo uu bilaash ka dhigay waxbarashadii. sidoo kale waxa uu mushaharka u kordhiyey dhammaan shaqaalaha dowladda, isagoo ugu daray imika ilaa 25%. laakiin taa waxaa daba yaala in uusan ku guuleysan dhammaan wixii uu ballan qaaday, waxaana la odhan karaa 69% uu ku guuleystay wixii uu ballan qaaday, balse inta hadhay isaga ayaa laga sugayaa. xisbiga kulmiye imika waxaa u sharaxan oo musharax madaxweyne u ah Muuse Biixi Cabdi, jagadaasna isaga u ordaya, laakiin Axmed Silaanye ma ordayo. sanadka 2017 dabayaaqadiisa ayaa la rajeynayaa inay doorasho ka dhacday. halyeyadii u kacay sahan iyo hayaan isku hawlay oo heelano hawsha iyo xilkii habkii dowladnimo idinka haye ilinka